Generaalkii ugu sarreeyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan oo is casilay maalintii Isniinta ahayd xaflad rasmi ah oo ka dhacday caasimadda waddanka Afghanistan ee Kaabul, xilli Taliban ay horumar wanaagsan ka suubinayso dagaalada ay kula jirto dowladda Afghanistan. Genaraal Aston Scott Miller, oo ah sargaalka ugu sarreeya ee ku sugan Afghanistan ciidamada Mareykanka ugu darajadana sarreeya ee ku sugan gudaha Afghanistan, ayaa taliskii ku wareejiyay Genaraal Kenneth Mackin, sida ay ku soo waramayso wakaaladda wararka AFP. Xaflad Kaabul ka dhacday, Miller wuxuuna Afghanistan ku sugnaa tan iyo 2018, laakiin bishii May waxaa dacwad ku soo oogay taliyaha guud ee madaxweyne Joe Biden in uu abaabulay bixitaankii ugu dambeeyay ee ciidamada Mareykanka oo la dhammaystirayo dhammaadka Agoosto. Dhanka kale, Taliban ayaa iyadana waxa ay sheegaysaa in ay waddanka Afghanistan boqolkiiba 85 ay la wareegtay, iyadoona hadda wacad ku martay in ay dagaal xooggan ku qaaday Jar-Bondi ee gobolka Barwan, halkaas oo uu ka socdo dagaal. Waxay u muuqataa in Talibaaniintu ay waddanka dhan la wareegi karaan inta aanan shirka dib u heshiisiinta la iskugu tagin miiska wadahadalka ee waddanka Turkiga caasimadiisa Istanbul. Dhanka kalena, Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa soo bandhigtay barnaamij shukaansi ah oo Islaamka oggol yahay isticmaalayaasha barnaamijka Hamdam waa inay qaataan tijaabada cilmi nafsiga, ayaa lagu yiri maqaal ay ku soo daabaceen website-kooda. Iiraan ayaa soo bandhigtay barnaamijka shukaansiga Islaamiga ah oo dowladda ogoshahay, oo lagu isticmaalayo isla markaana ogoshahay dowladda in loogu fududeeyo dhalinyarada. Hamdam Farsi ayaa la yiraahdaa abkan oo loogu yeero wehel adeeggu. Waxa uu oggolaanayaa in dadka isticmaalaya inay raadsadaan ay doortaan xaaskooda, ayuu warbaahinta u sheegay Isniintii. Waana barta kaliya ay dowladda ogoshahay oo nuuceeda ah ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, sida uu sheegay taliyaha booliska aagga internetka ee Iiraan Korneyl Cali Mohammad Rajabi, wuxuuna sheegay kaliya marka laga yimaado Hamdam ay yihiin kuwa kale oo dhan abab fasahaada ama aanan fiicnayn. Qaybta wararka intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa. Intaan warkaan war lamida ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.